dilo iyo wax la xiro shaqada dawladda saasaba ujeedka aan leenahay anaga waa dawladnimo. odayaasha dhaqanka iyo midnimada beelaha Hawiye oo gudoomiyaha uu u yahay nabadoon Maxamed Xasan Xaad ayaa si weyn u soo shacbaxay sanadka markuu ahaa 2007 kadib burburkii midowgii maxaakiimta islaamiga Soomaaliyeed ee looga adkaaday dagaalkii ay la galeen ciidamadii Itoobiya ee la wareegay caasimadda Muqdisho. maxaakiimta oo u kala jabay garabyo kala duwan oo iska caabina ayaa magaalada ka bilaabay weeraro ku dhufo ka dhaqaaq ah oo ka dhana ciidankii Itoobiya ee xoog ku qabsaday magaalada Muqdisho. beelweynta Hawiye oo awood ahaan degan caasimadda waxay ahaayeen dhibanayaasha uu saameynta ugu badan ku reebay gulufka ka socday magaalada oo naf iyo maalba lahaa. ciidanka Itoobiya walow ay taageereen dawladdii ku meel gaarka allaha u naxariistay madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Axmed, haddana ma jirin sharci xadidaya oo waxa ay madaafiicda BMK ee dadka Muqdisho u yaqaaneen fooriyay la dhaceen marasta Muqdisho. waana midaas ujeedka loo aas-aasay odayaasha dhaqanka iyo midnimada beelaha Hawiye ee xad uu hogaamiyo si beesha xoog iyo maalba ay isugu geyso sidii ay isaga dulqaadi lahaayeen ciidankii Itoobiya ee xooga ku qabsaday. nabadoon Xaad iyo allaha u naxariistay marxuum Axmed Diiri Cali waxay ahaayeen kuwa ugu cadcada odayaashaasi oo hadaladooda uu dhiirigelin iyo gobaabo u ahaa dhalinyarada iyo xoogaga dagaalka kula jiray ciidamadii Itoobiya. dad badan ayaa Xaad hogaamintiisa u arkay xilkasnimo iyo oday Soomaaliyeed oo xaq u dirir ah ilaa Soomaalida dibadda iyo gudahaba ay ku aaminaan dhaqaalahooda si loogu dhiirigeliyo kaalinta uu ka qaadanayo dib u xoreynta Muqdisho. hal abuurkii Xaad iyo saaxiibadiis oo dad badan ay naf iyo maalba ay u horeen ayaa guuleystay ciidamadii Itoobiyana waxaa laga saaray magaalada Muqdisho. nabadoonku waxa uu si dhow ula shaqeeyay dawladihii ugu dambeeyay ee dalka soo maray, waxaana weli loo arkay mid ilaashanaya dadaalkii xaq u dirirka ahaa ee dalka cadowga looga saaray. isagoo ka hadlaya mowjadaha mucaaradka ah ee ka dhanka ah dawladda federaalka Soomaaliya ee uu hogaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo intii uu ra'iisul wasaaraha ka ahaa Xasan Cali Kheyre ayuu sheegay in taasi ay hormuud u yihiin shakhsiyaad dana gaar ah wata, wuxuuna taageeray mabda' kasta oo dawladda ciddii ka soo horjeesata xabsi loogu taxaabayo ama lagu dilayo, isaga oo muujiyay in taasi ay tahay maslaxo lagu badbaadinayo dawladnimada Soomaaliya. ay maaragtay maanta ku noolaa karaan ciidamada mushaarkoodu helay oo shaqaalaha dawladda helay oo isla xisaabtana yimid oo iska warqab dawladeed yimid oo dadkii indhaha u furmay markii ugu horreysay waxa uu qaaday isbaaradii la dhihi jiray Jawajeer oo dhibka Soomaaliya ka haysta. wuxuu magacaabay ra'iisul wasaare daacada oo Soomaaliya oo shaqada uu qabtay la ogyahay. aan xisaabino dawladdu waxay qabatay iyo waxay beesaan xisaabino. midda kale in wax la dilo iyo in wax la xiro shaqada dawladda saasaba ujeedka aan leenahay anaga waa dawladnimo. dawladda wixii ka soo horjeedana waa naqaan indhaanu anaga waa furan. waxaan ammaanaynaa madaxweynaha ra'iisul wasaaraha, waxaan ammaanaynaa ciidamada anagoon kala reebin ku guuleystay nabadda oo ummadda Soomaaliyeed gaarsiiyay maanta inay habeenkii shaqaysan karaan ay ganacsan karaan ay socon karaan oo hididiila dawladnimo ay maaragtay maanta ku noolaa karaan. laakiin muddo kadib markii xilka ra'iisul wasaare laga casilay Xasan Cali Kheyre, nabadoon Xaad waa ka ra'yi duwan yahay sidii hore, wuxuuna u arkaa madaxweynihii uu noo sheegay in uu daacad yahay isla markaana wax badan ka qabtay dalka in dhimirka looga jiro oo uu dadka si bareer ah u laynayo. waana Xaadkii hore noo yiri dawladdu in ay wax xirto isla markaana disho xaq ayay u leedahay. isaga waxaan leenahay dadkan iyo dalkan dhibaato uma cusba, dictatorship uma cusba, kaliya taliya uma cusba, dhibaato badan ay soo mareen. qof walba oo dhibkaas geystana taariikh xumo ku dambeeyay. meesha ay kuwii ku dambeeyeen meel ka duwan ma aadaysid. taariikh xumada dhaxle haddaad xabad aadana xabad waxba ku qaadi maysid oo wax hubo waaye adaa ku dhimana. marka waxaan leeyahay hadda isdaba qabo yaan qorraxdu kuugu dhicin filla Soomaaliya haddaad qof wax garta tahay waay. haddaadan garanna haddii wanka weyn jeer la biro indhihiisa orada ma arkaan dad gowrac sugaya waa ku imaan doona halkaada ku sug. ninkaas bahalnimada ka shaqaynaya ummadda Soomaaliyeed halkaas la dhex taagan xabadda oo sharci ilaalihiin oo majnuunka oo handicapka oo qalbiga ka jiran waa in la shaqay
dowladda turkiga leenahay. haddaba nabadoon xaad geedkii harka weynaa ee uu ku shir guddoominayay beelweynta hawiye looguna huray naf iyo maalba ma waxa uu ahaa sidii uu darajo sare u gaarsiin lahaa siyaasi xigtadiisa ah soo tani uma muuqato cadaaladii qaali huurshe ee la joojiyaana bannaan la jiifiyaana bannaan. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. dadkaan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. intaa iyo in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka.